ما أننا نوجيني صومالي بدن on eel u ahayn on madax u ahayn on aad u soo dhaweynin on dhaqaalaynin kilkisha hoosteeda iyo guntiyada ku haysan yaa kulligood hambalyo sameeyay markii xilka laga qaaday aadan waxaan leeyahay waad naxaysaan galabta waadna naaqusaysan waxaad laqaysaan biyo kulul laakiin waxaan leeyahay sakiin laqa kuwii ka xumaa xilkii uu ummadda Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka iyo Kenya ugu adeegay markii khilaafkii kacay dartii shaqada loo yar hakiyay kuwii ku farxay ee hambalyada sameeyay waan ka warqabnaa hanna quseeno hanna xino hajabeen maanta magacaygu waa Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Khaliif ugaaska beelaha kuumade waxaan maanta farxad iyo hambalyo iyo raynba u diraya madaxweynaha dawladda Kenya mudane William Ruto waxaan oga hambalyeyn magacawgi oo mar labaad soo magacaabay golaha wasiirada qayb kamida oo lambar 1 ka soo dhigay halyeeygi Soomaaliyeed halyeeygi diinta Islaamka halyeeygi ka soo jeeday countiga Garissa mudane Aadan Barre Ducaale madaxweyne hambalyo mar labaad iyo mar koobaad iyo mar saddexaad sidoo kale waxaan in badan oo boqolaal goor kor u dhaaf u hambalyeynaya wasiirada cusub ee la soo magacaabay khaas ahaan Aadan Barre Ducaale hambalyo adeer cod dheer baan ku hambalyeynaya intaas waa hambalyadii iyo qaybteed in kale ma aanan ogeyni Soomaali badan on eel u ahayn on madax u ahayn on aad u soo dhaweynin on dhaqaalaynin kilkisha hoosteeda iyo guntiyada ku haysan yaa kulligood hambalyo sameeyay markii xilka laga qaaday aadan waxaan leeyahay waad naxaysaan galabta waadna naaqusaysan waxaad laqaysaan biyo kulul hebel iyo hebel ma dhahayo laakiin waxaan leeyahay sakiin laqa kuwii ka xumaa xilkii uu ummadda Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka iyo Kenya ugu adeegay markii khilaafkii kacay dartii shaqada loo yar hakiyay kuwii ku farxay ee hambalyada sameeyay waan ka warqabnaa hanna quseeno hanna xino hajabeen maanta intaana kuwaasaan leh inta kale Soomaali intii faraxday hambalyaan leh waxaan anagu naqaanaa halyeey Soomaaliyeed halyeey diinta Islaamka u taagan halyeey shaqadiisa ka adag wixii kale geesi si fiican Soomaalinimada iyo diinta Islaamka labaduba ugu taagan baan u naqaan kuwa ay dhibaatada ku ahaydaan wuxuu u dhimaayay maba arkaynina wuxuu u galaayay waan arkaaye kuwa hajabeen وين حين هنا قسين على شو همدوبات مرة بعد مر صدحات همبليو ما يعيوا واس عبد الرحمن أفكار بيلها كومادان كو همبليين يا حنا لا هاي دولة كينيا هجوليستو الصوماليين ملي شوكتها هجوليستو أنت وأنا بان صالح أنت حنا عدو جنا ذو شبتين عدو جنا وشب عاديات بعض ما تصنتها هذا معاني soo dhawow gacmo furan qalbi furan iyo karaamad mudanta karaamadaadna wanta kolol badan oo horan waan ku soo dooranay haddana madaxweynaha Kenya ku soo doortay isaguna hambalyaan leenahay madaxda kale lala soo doortayna hambalyaan leenahay waa mahadsantihiin madaxweyne waa mahadsan tahay
mar labaad iyo mar saddexaad guulaysta waddanka kenyana nabad ha ahaado kuwa siyaasiyiinta ee mucaaradka kenya ka dambeeya warooy ceel nin galay baa laga warsadaa war colaada soomaali baa aragtay dawlad la dumiye soomaali baa aragtay war hooy war waad ladantihiina ladnaanta ilaashada oo abaabulka iyo mudaharaadka iyo qaylada iyo dadka aad boobaysaan joojiya war waxaa joojiya war Kenya weligeed dimuqraadi ahayd wada hadal baa ka jira hal la wada hadlo war wada hadal hal lagu dhameeyo wax walba madaxweyne guulaysan ku leenahay wax walbana wada hadal ka dhig aad iyo aad baad mahadsantiin Kenyaankana waxaan leenahay rabshadaha hoos u dhiga siyaasiyiinta wada joojiya abaabulka iyo khilaafka wadooyinka hal la furo dadka Kenyaanka ee walaalaha ha wada noolaadeen yaan magac xun inaga tagin aad iyo aad baad mahadsantiin guulaystaan idan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo guul